wararka naga soo gaaraya gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa ku waramaya in waa berigi hore ee saaga halkaasi deegaano kamid ah ay banayeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab oo wata gaadiidka dagaalka ayaa la arkayay iyagoo ka ruqansanaya deegaanka Ceellehle oo u dhow degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud kuwaasi oo ku sii jeeda degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ka bixitaanka ciidamada al-shabaab ee deegaanka Ceellehle ayaa timid ka gadaal markii ciidamada dawladda Soomaaliya oo ay baritaan kuwa Galmudug saacadihii ugu dambeeyay howlgalo ballaaran ay ka sameeyeen deegaanka Bulacle oo u dhow deegaanka Ceellehle ee gobolka Galgaduud gulufkan coladeed iyo baabulkan dagaal ee ka soo cusboonaaday duleedka magaalada Dhuusamareeb ayaa yimid ka gadaal markii madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor talaadii soo dhaafay uu gaaray magaaladaasi isagoona ka dalbaday saraakiisha qaybaheeda kala duwan ee ka howlgala deegaanada Galmudug in howlgalo ka dhan al-shabaab ay qaadaan si looga hortago weerarada al-shabaab ay ku joogteeyeen ay ku soo qaadayaan magaalada Dhuusamareeb iyo magaalooyinka kale halbuula u ah maamulka Galmudug madaxweyne Qorqor ayaa ka dalbaday saraakiisha iyo shacabka deegaanada Galmudug in ay iska kaashadaan la dagaalanka al-shabaab kaasoo ku tilaabeynayeen cadow ku soo duulay deegaanadiisa waa sidoo hadalka u dhigay laba maalin ka hor ayaa sidoo kale dagaalo culus waxay ugu dhaceen deegaan lagu magacaabo laba dulle oo koonfurta kaga aadan magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud halkaas la sheegay in laga qabsaday dagaalamayaasha al-shabaab wali wax warar kama ay soo bixin saraakiisha ka tirsan al-shabaab ee ah in ay banayeen deegaankaasi oo muhiim u ah isu socodka kadib markii al-shabaab halkaasi culeysyo xoogan ay kaga timid dhanka ciidamada dawladda Soomaaliya ma ahan markii ugu horeysay al-shabaab deegaanka Ceellehle ay banayeen waxaana wadar jeero hore al-shabaab halkaasi isaga bixeen gudaha u soo galay ciidamada dawladda Soomaaliya oo garab military ka helaya kuwa Galmudug waxaana saacadun kadib ciidamadaasi ay dib isaga baxaan ay soo gashay in al-shabaab ay qabsadaan